بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوس إبراهيم إذا كلا هذا لندن وان سلام يا دمان ومد الصوماليات. runtii ma rabeen inta rabadaan baxaysa inaan video dambe ku soo celiyo fi social media laakiin waxyaalo badan baa ku soo kicinayaan markaas bustaha la soo kacaysa waxa weeyaan maalmahan dambe waxa ka socday oo ku saabsan dagaalka iyo ku socdo anigu tukara qoran maayo dhamaan ariga dhulbaanto oo dhan arrimaha ku saabsan ee ka soo yeeraya wiilashaas Jeegaanland waxa weeyaan de maxabad joojinba ma qiyaama waxay tahay anigu waan garan waaye xabad joojin iyo nabad waxaan doonayno ilaah baan og inaan maanta anigu wiil dhulbaantii wiil Soomaaliyeed iyo wiil Isaaq iyo midna inuu dhinto oo waliba wiil kala Soomaaliyeed gacantiisa oo ku dhinta aan la doonaynin cid doonaysaana ma jirto laakiin de tani musabixi ee uu leeyahay xabad joojin iyo dadka uu isu keenay ama wasiirkiisa uu qaaftiyo diinta sheeganaya de taasi ma aha nabad ma aha waa intaan ciidanka tababaranayo isuga mariya calasta laga soo gurayo galbeed intaan tababarayo waayo muusan oo xabad joojin meel ma wada galaan waxa weeyaan maanta Jeegaanay de waxa horta idinku liqdaan oo ku qayisheen ayaa horta idinku raadinaysaan itiraaf baa raadinaysaan idinkaana ku qayilay Soomaaliland baa raadinaysaan idinkaana ku qayilay oo maanta burburiyay waxa weey maanta waqooyi waxa degan Ciisa degan oo gudabiirsi baa degan Ciisa degan oo waa cabanayaan dhulkoodii bay idinka taaglaayeen gudabiirsi baa degan waa cabanayeen dhulkoodii baa ku haysataan dhulbahanta degan oo dhulkiisa baa ku haysataan warsangali baa degan oo dhulkiisa baa ku haysataan madhibaan iyo muuse dhariya degan oo waa cabanayaan oo waa dulmiyaysan dadkana waxaad ugu yeedhan minority horta intaas oo reer oo Soomaaliyeed meel ay degan tahay oo idinka aad wada dhibaataynaysan yaa minority oo hadana dhibka wada de Jeegaanay waa adiga waayo Jeegaanay awal horeysa qodhan ba eed maanta garxajis kuma jiro marka waxa weeyaan de habar jecliya saxab muuse waxa soo haray arab oo aanan maqal reer woogayo aanan maqalin iyagu meeshii yaani waxa mowqifkooda yaana wali maqalin taasina wax soconaya ma aha midda labaad waxa tiraahday nabad baan ku baaqnay culimadu horta waxa fiican xaq inay ka hadasho war maanta anigu gabilay aan wada degno oo aad sheegatid dhulkayga iyo nugaal oo tukarraq iyo laascaanood igu qabsatid iyo nugaal oo dhane gabilay baa degtaa ma kula degaa waa maya burca degtaa ma kula degaa waa maya hargeysa degtaa ma kula degaa waa maya guryahaygii oo dhan waxa weeyaan waxaraas bay ka noqdeen shaqaalaha iyo dadka ka shaqeeya maamulkaaga qof qura oo maanta qabiilada aan soo sheegay kuma jiro waxa weeye adaa waliba damaaci wado ku haysta dhulkoodii haddaba adigu Soomaalinimadii aad ku iyo daris wanaagii iyo Soomaalinimada aad raadinayso Soomaalilandnimada aad raadinayso iyo itiraafka aad raadinayso horta intiiba adaa ku qayilay haddaad qayishana aad ku qayishana dulmi bay dhashay dulmigu baa imka dildilaacay wax kale meesha yaala ma jiraan nabada inuu wada deganaano 10 sano lahayn daris baynu nahay fal baynu nahay maanta waxay maraysaa hablihii qabteen caruuraha lixlixda dhala sodoha inay gowracdaan bay maraysaa waxay maraysaa maanta inay dadkiina madaxda sheeganaya ee daanu madaxba uma qaaneen ninkan muxuu ahaayay Faysal iska hadla maanta waxa maraysan siyaasiyiin idinkoo sheeganaya inaad tiraahdaan caruurta muxuu ahaayay ama harti ama daaroodba booraba ka dhigatay iskuulee halalaayay maraysaa waxay maraysaa inaad dadkii maxaabiista ahaa ee qabataan inaad mindiyo kula yaacdaan bay maraysaa oo aad isku moodaan yaani dad qarana inaad qof maxbuus oo gacanta ku qabateen oo Soomaaliya aad dishaan inaad qabiilo aan waxba idin ahayn aad ku muusan noqdaan oo tiraadaan u bixisaan inay qabiilkiina yihiin Ciise bin Axmed inaad tiraadaan Ciise wuxuu yahay ba wala yaqaanaa de ma hadda maanta qabiilidin la noqonaya war waxaan leenahay nabadda doonaysan anaga idinka jecel oo intaas oo sanadood raadinayni laakiin waxa jirta qofka bini aadamkii markay naftu ka dhaxayso meel haddii soo gaadho naftu aan toobadiisa la aqbalin halkaasay maraysaa anaga maanta halkaasay naga maraysaa haddaad nabad sheegtaan iyo haddaad wax ku baaqdaana tii la aqbalayay taasi maaha kaliya waxa la aqbalayaa un maanta nimanka xasiida iyo aad ka soo gurtay beeraha ku cuni jiray galeyga ee aniga igu haysta nugaal iyo caanaha geelayga igu haysta inaad dib u soo gurato taan baa la aqbalayaa wax khamiis xilataya wadaada soo shirisaya muxuu ahaayay koofiyad soo saarataya waxa weeyaan wadaadada aad u yeedhayna dulmigii may ku tusin oo wixii maanta jiray may ku oranin reerka waxaynu ku dooranay waa gardarro ee waxay ku yiraahdeen Muuse adigu marnaba ciidna ma doonatid waxaan ku sheegayaa Muuse hadday nugaal iyo tahay aniga afar magafe dhulkayga ma iibiyaan iibna kaama aha dhulka aad ku baaqay sida rag iyo dumarna u taagantihiin media dhulkayaga dee war intiina kadbada intiina bismillah dhaha hadda dawladnimo raadinaysayna de waa fashil waa failure de idinkaana fashilay markaad qabyaalad ka hadhi weydeen markaad maalin walba cay iyo talaf inaad soo taagnaataan media ka hadhi weydeen markaad tiraahdeen
waqooyi waxa degan anaga mooyaane waa minority idinku waliba minority tihiin marka intaas oo qabiilo la isu sheego ee cid walba aad dulmideen de ilaahay cidna ma dulmiyin marka waxaan idin leeyahay halkaas ay maraysaa halka ma fahant adduunkan istaba marayni waliba daleeyahay waleelay madaga ani malahalay madudsiyo maladaha baan leeyahay damac ruuxna kama galo taasaan ku leeyahay haddaad la yaaban tahay ciidankan meesha soo buux dhaafiyada hirkan soo baxee kaa maray hareeraha hadda waa ikanoo hadda waa anigii weeye day kuma darwiish ninkaa dulmaysayd intaasoo sannadood waddankiisa iiga bax idaa iga joog kulahaa maanta wuu ka soo baxay galkii jiifkiina wuu ka soo kacay ma fahantay inuu cali khaliif kula soo ku yimid oo ku muusanaabay oo yidhi war dagaal baan haystay isaaqow muxuu dagaalama uu idin yidhina dambaaba noogu jirtay waxaabad jar moodaysaa khayr ku ah anaga dambaa noogu jirtay waddankayagii dadkayagii maanta way israaceen ma fahantay inamada wixii dagaalka lagaaga dilada waad u haysataa cidaad u raaci lahayd waad haysataa kooxda magafayaasha gowrac sugayaal de mar haddaad gabdhihii aad qabteen caruuraha dhalayba gowracdeen dee kuwaasaa idinku xiga caruurtayada anaga boorama reer soomaaliyeed oo kuwa adduun soomaali ugu aqoonta badan ugu sharafta badan bay la joogaan ma fahanta soomaaliyana waa iswada dhex degan tahay soomaad garanin meeshaad ka bilaabi lahayd adaa lagaa rabaa magafayaasha ka bilaabi lahayda adigu iska bilaabi lahayda sheekadu waxay taagan tahay meeshii loogu talagalay waayo inan rag aan isdayna mooye idaa male idaa dambe way soo dhamaatay adna imika nabadaad ku baaqaysid macnaheedu waxa weeye intaan ciidanka iyo mariya calasta aan cayaarsiisanayo een tababarayo halaysugo taa macnaheedu weeye qasaaraha ugu weyne maanta anaga na gaadhaya waa rag dhinta daawalba way dhimanayeen oo waliba si xun bay u dhimanayeen oo dulinimo ah ta ku xigtay maanta dhacaysana waxa weeyaan inay caasimada dhulbahanta ee laascaanood ay dunto ta ku xigtaana waa taana dee shalay adiguba waadigii lahaa ilaah baa deeq baxshee madfaca daaraha ka daa haddaad doontana ku dami dad rag baa dibadda u jireen maantana annakaa dibadda u jirnay haddaad doontana ka daa haddaad doontana ku dami waa la dhisayaa taasaan ku leeyahay annagu nabad annagaa rabna ilaahay baa calooshayeedu og nabad baan rabnaa oo wiil isaaq inuu dhinto inaanan rabin oo wiil dhulbahanta inuu dilo inaanan rabin laakiin adigu kibir iyo faan iyo waan ku qabsanaya iyo guur dhulka adigu malihide iyo minority halkaasay soo gaadhay halkaas ayay soo gaadhay waxaan idin leeyahay markaa wixii alla inoo kala qaado ee ilaahay uu inoo kala qaado ayaynu ku kala qaadaynaa tan laakiin maanta looma kala hadhayo caruurta yaryar ku hoos noqotaya arda quraanta ku hoos noqotaya dumarkaad qabta laysaya magafayaasha ka goysaya it's entirely up to you anaga taas way naga taaganta marka miyirka kabada ilmaada riyaa waynu ismudan aynu isu iidno السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.